السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان هلكان kala hadlayaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool Columbus. Waxa jirta inay magaalada yimaadeen niman leeyahay ICE oo ka socda immigration-ka. hase yeeshee waxaan helay fariimo aan state-ka ka helay oo sheegaya in dadkan ay goobayaan dad gooni ah oo ama dad dambi hore u galay ama ay raadinayaan. mana jirto weerar gooni ah ay dadka Soomaalida ku yihiin. waxaan u mahadnaqayaa meeyarka Columbus oo maanta sheegay inaan booliisku la shaqayn doonin isla markaasna dadka Soomaalida ay la shaqayn doonaan wixii ay immigrants oo dhan wixii yimaada. waxaan kaloo la hadalay looyaro diyaar u ah inay nala shaqeeyaan iyo dad Mareykan oo cadaan ah. waxaana lagu wargeliyay inay jiraan dad Soomaali ah oo had iyo jeer idaacadaha taagan oo raba dadka inay batiyaan. khatar ma jirto, community-ga waa u joognaa, waxyaalo ka daran baan soo maray. waana la hadlaynaa dawladda. waxaan rajaynaynaa qof walba uu qaado sharcigaaga, green card-kaaga qaado, I-94-kaaga qaado. waxay maanta joojiyeen gabar haysata I-94 oo aan xataa green card haysan. markay joojiyeen carruurteeday doonaysay waxay tustay kaliya driver license-kii kabacdi guriga u raaceen. markay guriga u raaceenna waxay tustay I-94-keedii iyo work permit-keedii. raalli oo bay ku dheheen sharcigaaga qaado, dhibaatana ma jirto. dadka batinaya oo raba YouTubers-ka noqday oo raba dadka inay batiyaan waxba kama jiraan. ninkii raba inuu war helo community-ga la soo xiriiro, looyaraan u ahaynaa, waana idin la shaqaynaynaa. sidoo kale la soo xiriira Maxamed Faarax oo aan wada shaqaynayna haddii alla idno. waxaanu la xiriiray iskuulada, waxay tagayaan nimankan meelaha macdarrada ama suuqyada tagayaan. khatar gooni ah oo Soomaali ahna ma jirto. sidaa daraaddeed yaan dadka la argagixinin, beena loo sheegin. cidkii rabta in wax qabatana si guud inta community-gu soo mataado ha laga wada shaqeeyo oo ka soo qayb gala. laakiin 3 qof ama 4 qof hadda meel taagan oo rabta daraamo rabta iyo inay tusaan laga arko Soomaaliya ama laga arko Minnesota ama meel kale laga arko ma aqbalayno. caruurahayaga baa jooga meeshan, ilmahayaga baa jooga, magaalada waa degannahay, si nabad ah rabnaa inaan ugu noolaano. Mareykan baan nahay, gobolkan xiriir la leenahay, meeyarkan xiriir la leenahay. wixii dhacana waa loo wada jooga, looyarana waanu haysanaa, waddankaana madax baanu ka nahay. waa mahadsantiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. maxaan kala socotaa sheekada baraha bulshada qabsatay ee islaantan Donald Trump taageersanay? haddaba islaantan aad u jeedaan waxay ka mid ahayd taageerayaasha waaweyn ee Donald Trump, balse waxa ay sidoo kale ka mid ahayd dadka food stamp-ka qaata. waxaana saameeyey government shutdown-ka, food stamp-kii ayaa laga jartay. maxaa dhacay marka? waxaa dhacay in ay wacdo sodohdeeda marka ay wacday waxa ay ku tiri dee lacagtii ayaa la iga jartay ee food stamp-ka ee waxaan kaa doonayaa in lacag aad isiiso si aan raashiin u soo gato. kadibna sodohdeedii jawaab aan caadi ahayn ayay siisay oo waxa ay ku tiri waxaad lacag ka raadsataa Donald Trump, isaga ha ku amaahiyo maadaama Donald Trump aad taageersanayd islamarkaana Donald Trump aad u codaysay, istaahilkaagii waa sidaase Donald Trump ka raadso ayay ku tiri. islaantii ayaa social media soo fadhiisatay, afka furatay, waxaana hadda ay ka shilaynaysaa taageeradii ay u muujisay maamulka Donald Trump iyo weliba Donald Trump. ugu dambeyntii Soomaalidu waxay tiraahdaa intaadan falin ka fiirso. dad badan oo Soomaaliyeed oo sidaa ku dhacday oo Donald Trump u codeeyey maantana guryahooda food stamp la'aan ah ayaa jiro. sidaa ula soco. maasanid.